soo dhawow. Anaga haddaan Muslim nahay, meel walba ku dhibaataysannahay. Haddii dhibaato yar la geysto, waxaa noo taalo Muslimna geystay, isagoo Islaamnimo ku gambanayo. Dhibaatadan shalay ilaa iyo maanta ayay taagan tahay dalkan Jarmalka. Shalay toole ayaa waxaa dhacday in nin lagu sheegay Sacuudiyan inuu yahay oo 50 sano jir ah inuu weerar ku qaaday asoo gaari wato suuq Christmaskii waxaas lagu adeegto magaalo ka tirsan magaalooyinka Jarmalka. Ninkii intii booliska aysan soo saarin ayaa shacabkii iyo dadkii siyaasiyiintii waxay isla dhex mareen ninkii inuu ahaa nin Muslim ah oo dhibaatada u geystay Islaamnimo darteeda. Laakiin maanta oo Sabti ah, warbixinta markay booliska kasoo baxday, waxaa la ogaaday ninkaas inuu yahay nin Sacuudiyaan ah, 50 sano jir ah, Ilaahay uu ku roon yahay علشان oo diintana nafti ka qaatay aan Muslim ba ahayn oo biladiin uu yahay. Sidoo kalena dalkan Jarmalkan uu soo galay 2006 uu yahay qof dhaqtarnimo ka shaqeynayay qaybtan dadka maskaxda ka wareersan ama dadka waalan dhaqtar uu ahaa.